السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي هابون دي لهانتينبا daawadayaal kusoo dhawaada Halhays Media. barnaamijkeena waxaynu ku daaqaadaynaa qisada heesta bulshadu siyaabaha kala duwan u fasirteen ee 275 ee uu fanaanka Suldaan Seraar Guhaad uu saacado ka hor wada ka soo qaaday. sababta heestan uu halku dhigeedu yahay magaca tira 275 ama 275. waxa daba daawadayaal waxaanu khadka telefoonka aan kula xiriirnay fanaanka Suldaan Seraar Guhaad oo hadda ku sugan gudaha Soomaaliland. Suldaan Seraar Guhaad ku soo dhawo warbaahinta Halhays Media. waxaanu kaaga mahad celinaa sida aad nooga aqbashay codsigayagii. Suldaan, waxaan rabnaa inaad nooga warbixiso qisada heestan ee 275 saacado ka hor aad soo qaaday, bulshaduna siyaabo kala duwan ay u fasirteen heestani. bal nooga warbixi heestani waxa ay ku timi. waan dhawahay walaalo, aadna wad mahadsantiin Halhays Media, baada Halhays Media. waruntaas aad sheegtay su'aalo badan baa dadku isweydiinayaan muddadii koobnayd ee heesku YouTube ku jirtay. micnaha ula jeedo 275 heesku waa hees qisar run aan ku qotoma. waxaa sameeyay abwaan aqal yare. waxayna ka hadlaysaa wiil iyo gabar muddo dheer xiriir ka soo dhaxeeyay oo soo wada sheekaysanayay. yaa markii ay damceen inay xiriirkooda guur u bedelaan oo isguursadaan, in labadii famil ay isu diidaan oo gabadhii lagu dhaho wiilku kuma qalmo ama kuma geeyo. sidii baa la isugu diiday. jacaylka ay soo wadeen iyo waqtiga ay soo wada qaateen familka ayaa xanibay oo arrimo qabiil awgood baa loogu diiday, la isugu diiday labadooda. muddo kadib 2 sano kadib ayay isguursadeen oo la isu ogolaaday markii la arkay in labada qof laba iska maarmiyay aysan ahayn, jacayl run ana uu ka dhaxeeyo. waxayna isguursadeen bishii iminkaan soo dhaafnay May 27 bishii shanaad 275 halkaas ay ka timid. waa maalinkii ay isguursadeen. marka saasay ku timid 275 waa taariikhda ay isguursadeen wiilka iyo gabadha oo ahayd bishii aan soo dhaafnay May 27 bishii shanaad. xaqiiqa haddii aan eego waxaan ahay fanaan Soomaaliyeed oo wax ku ah dadkiisa iyo shacabkiisa. dhan qabiil iyo dhan siyaasadeed baan ka madax bannaanahay. horeyna uma qaadin heeso siyaasad ku saabsan ama heeso qalooca. hadda kadibna ma qaadi doono insha Allah. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed lagu dhinto Soomaalinimada. aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin.